magacay waa Cabdirashiid Cali Shaac waxaan ka soo jeedaa deegaanka Soomaalida waxaan kamid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka iyo isbedelkii deegaanka ka dhacay waxaan ku suganahay hadda magaalada Dadaab iyo xiriyaha qaxootiga ayaan ku sugnaa ilaa shalay dhammaan guud ahaan waan salaamayaa dadka Soomaaliyeed qaxootiga ku ah magaalada Dadaab sidoo kale dadka martigeliya Soomaaliyeed ee walaalahooda muddada 27 sano ah martigelin u sameeyay iyo soo dhaweynba deegaankooda ay ku nool yihiin gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka deegaanka ka soo jeeda muddada qaxootiga ku ah halkan kuwii horay Soomaaliya intay u soo qaxeen kadibna Soomaaliya dagaalada sokoy kaga soo qaxay ku soo haddana halkan u soo qaxay mar labaad soo qaxay iyo kuwa sida tooska aba 95 ama 94 laga bilaabo sida tartiibta ugu soo qaxayay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa isbedelka geeska Afrika ka dhacaya mar dambe dadkeenu inaysan qaxaynin ama qax dambe iyo qaxootinimo dambe inaynu ka raysan doono inaan wadankeena iyo kheyraadkiisa ka faa'iideysan doono intii dhooftayna ay aqoonta iyo khibradda iyo waayo aragnimada ay ka heleen dibadda ay ku soo celin doonaan dadkooda marka guud ahaan uu indhayn iyo waxaan u imid aanan weligii arag xiriyahan qaxootiga iyo inaan toos ku ifino xaaladda dadkan ay ku sugan yihiin quusta waxa weeye ninka aabihii uu 77 ka soo qaxay ama dagaalkii 77 ee Ethiopia qoryoole ama luuq jeelo ama camalow ama luuq ganaane ku soo qaxay haddana asagii ama ku dhashay halka xirada qaxootiga asagiina dagaalada sokeeye ka soo qaxay Dadaab haddana 27 sano Dadaab jooga almost quus buu nolosha ka taagan yahay Muuse arag wadan uu leeyahay uu xor u yahay wuxuu rabo uu ka noqon karo Muuse arag nolol uu asagu wax soo saaran karo nolol gacanta lagu hayn baa marka dadkaas ayaan jeclaa inaan ku dhiiri gelino inay wadankoodii ku noqdaan inay ku noqdaan deegaamadoodii inay soo arkaan inay ogaadaan inay rajo leeyihiin Cabdirashiid waxaad imaatay xarooyinkan qaxootiga ee Dadaab waxaad qayb ka ahayd dadkii isbedelka dawlad deegaanka Soomaalida ka sameeyay dad fara badan oo xarooyinkan ku nool baa jira oo gobolka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda ama gobolka Ogaadeen ka soo jeeda dadkaasi oo aan xog fara badan ka haynin gobolkaasi marka bal hadaa dadkaasi uga waranto xilligan gobolkaasi wuxuu ku sugan yahay bismillaah marka ugu horeysa waa Ilaahay mahadi gobolka hadda muddo dheer kadib kama jiro dagaal siyaasadeed qalaasayaal kale way ka jiraan guud ahaan Itoobiya oo xagga qoomiyadaha ah laakiin dagaalkii siyaasadda u dhaxeeyay shacabka deegaanka iyo dawladihii kala duwanaa Itoobiya waqti xaadirkan kama jiro si guudna Itoobiya isbedel baa ka dhacay Itoobiyadii isku duubnayd ee nu naqaanay ee halka wadan ahayd waxaad moodaa meesha inay ka sii baxayso waxaa soo baxday Itoobiya qoomiyada ah oo qoomiyad walbaba ay ma aragtay ay rabto inay xukunka qabsato qoomiyad walba inay xukunka ayadu qabsato marka ujeedadu waxay tahay dadkeenu markii koobaad ayay fursad u heleen waqti kala guura inay midoobaan oo wadankooda ku noqdaan haddaad wadankaaga aad u difaacan ku dhimanin dhisanin waxa weeye cid ku dhisaysa malaha haddaa inagoo dhan qaxooti aan ku noqono Kenya Tanzania Yemen Sacuudiga Maraykan iyo Yurub yeen wadankii uga tagaynaa hadhow toole marka maaha inaad ka calaacayso wadankii qoomiyad kala qabsanaysa ee dad kale ku soo guuray ama degay maxay la adigii waa banaysay booska u banaysay marka wadanku guud ahaan waa nabad colaad siyaasadeedna kama jirto xorriyadu qowlku ama dadku xorriyadooda shakhsiga ah meeshii ugu sareysay baan inta taariikhda la sheegay ayay maraysaa hadda laakiin way soo noqon oo halkii hore waa lagu soo noqon haddii aan la adkeenno la difaacin haddii aan la isxil qaamin haddii aan dawladdii lala xisaabtamin ta federaal iyo tii kililka waa labadaba oo pressure haddii uusan jirin ururo mucaarada ururo xuquuqda insaanka u dooda media xor ah oo maalin walba dawladda dhaleecaynayso pressure saaraysa haddaysan jirin way dhib yar tahay inay dictatornimadii iyo cadaadiskii iyo dilkii uu soo noqdo marka insha Allah taala suuna u soo noqonin dadka halkan ku sugan ama xiriyahan oo way aragnimo badan leh ama Soomaaliya waqtiga ku noolaan ha noqoto ama halkan waqtiga ku nool yihiin Kenya oo wadan dimuqraadiya oo ay arkeen sida xorriyada qowlka iyo uga shaqeeya doodaha siyaasaddu
labadaba ha noqoto waxaa muhiima inay khibradda ayadaa oo la tagaan intii bixi kartay ama dhoofi kartay way dhooftay ilaahay baa calaf ugu daray dibadaha aadeen inta kale ma qabo inay anymore ay ku silcaan ay ku rafaadaan xeryaha waxaan qabaa in dhulkooda cabdirashiid qofka ka soo jeeda gobolkaasi ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in xog fara badan ka haysanin gobolkaasi waxaa tagtay min magaalo ilaa tuulo gobolkaasi xogtaad siin lahayd maxay tahay qofka hadda jooga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aan xog fara badan ka haysanin gobolkaasi dhanka nolosha arrimaha bini'aadanimada ee gobolkaasi ka jira marka koowaad dadku ma dhaheen si iska habqana waddankooda ha u guuraan waxaa fiican inay ay samaystaan ururo ama guddiyo la xisaabtama dowladda etoobiya oo ayadu tan iyo markii lagu wareejiyey etoobiya ilaa maalinkaa maanta sabab u ah hooyo qaxa dadka 64 dadkii soo qaxay 77 dadkii soo qaxay iyo kuwii 2000 iyo TPLF ka soo qaxay dhammaan waxaa mas'uulka dawladda Itoobiya dadkeena qaxootiga waxay xaq ugu leeyihiin dawladda Itoobiya marka koobaad magdhow dib u dejin noloshoodii lagu ciyaar dadkoodii la laayay ehelkoodii waa marka koobaad mar labaadka waxa deegaanku waa dhulkii aad ka timaadeen noloshu waa iska basic laakiin waa waddankaagi oo sidii horena ma aha askari ku cayrsanaya ama ku dilaya ma jiro u baybaatay ama shufta baatay way ka dhamaatay oo wax dagaal oo siyaasadeed kama jiro marka dadku waxay u baahan yihiin oo arinta aan rabo inaan xoog saarana ma aha inay ayaku ay guuraan magaalooyinka deegaan laakiin in ay dawladda Itoobiya iyo siyaasiyiinta deegaanka ee matala ama ha noqdaan kuwa jabhadda oo naraf ama ha noqdaan kuwa deegaanka ka taliya inay culays ku saaraan dawladda Itoobiya inay la xisaabtamaan international community inay la xisaabtamaan waxyaalihii markii wada hadalka oo nalafta uu socday oo qayb ka ahaa oo joogay goobjoog ahaa aan xoog saaray waxay kamid ahaa dadkii qaxay dib u dejin loo sameeyay iyo magdhow inkastoo moodi siyaasiyiintu badankood inay ku raacsanayn oo uu intii qaxda way qaxday ayakaaba nolol kala helay iyo hadallo iska raqiis ay oranayaan laakiin waa laga maarmaan tusaale yar yuhuudda jarmalku waxay laayeen 1940 ilaa 45 inta u dhaxaysay ilaa maalinka maanta magdhowgii baa la bixiyaa waxaa la siiyaa kuwii waagii la xasuuqay ama xabsiga la geliyay carruurtii sii dhaleen baa magdhowgii la siiyaa innagana marka ninkii 64 la soo qaxiyey ama 77 hadduuna asagii noolan waa in carruurtiisa magdhowgii la siiyaa oo dib u dejin loo sameeyaa iyo dhulkiisii magaaladiisii laga soo qaxiyey gurigii laga gubay loo dhisaa lacagtiina la siiyaa magdhowga ahayd dawladda Itoobiya ama ha ku noqoto deyn ama meel kale wax ka soo qaadato ayada ay mas'uuliyaddu saaranta dhibaatada ugu badan Itoobiya dadka Soomaalida ayuu ka soo gaaray intaynu ka tirsaneen waligeen wax wanaaga meena ka arag marka ma aha oo kaliya siyaasadda iyo xornimada iyo waxa kale yeeso in loo dagaalamo ee dad u istaago way muhiim laakiin markii nabad la qaatana dadkii masaakiinta ahaa ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo gobolada dagaalka la geliyay ee dhaawacmay ee soo qaxay ee soo burburmaha in la iloobo meesha laga tago anusaan qabo waxay tahay kuwaas u baahan in la caawiyo kiiskooda banaanka la soo dhigo kursi intii loo doodi lahaa ama xukun in la qabsado ama inay hebel madax noqdo waxa ka muhiimsan 200 oo kun oo qof oo dib u dejin loo sameeyo oo magdhow la siiyo oo dhulkooda lagu celiyo marka ma kula tahay dadka gobolka ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida hadii ku nool xerooyinkan dhadhaab hadii ay dib ugu laabtaan gobolkii in xilligan ay helayaan waxyaabaha asaasiga ay ku haystaan halkan tan marka hore waxaan ogahay xagga nolosha hatta de halkan UN baa bixisaan u maleynay xaggan WFP baa joogta waliba halka wax safety la dhaha jira oo lacag baa la siiyaa cash World Banking way finance gareeyaan oo dadku ay ku magaaladooda joogaan waxoodii baa family-giiba lacag bishii loo xisaabiyaa oo lacag baa la siiyaa cash raashinkana waa la siiyaa way dadka aan iska bi karin laakiin aan saabo ma rabo hadii hay'adaha caalamiga iyadoo la kaashanay iyo dawladda Itoobiya iyo dawladda Kilalkaba oo ahayd markii isbedelku u dhacayo qorshayaashii noo yaalay mid kamid ah dadkii qaxooda in soo celiyo taa kaliya ma aha waa in guryo fiican loo dhisaa shaqana loo abuuraa ma aha dadka in la qoodiyo waa in ayaga shaqo abuur intii loo sameeyo ama ganacsi ha noqoto ama beeraha noqoto ama warshadii wax soo saar kale ha noqoto waa in ayagu isku filaadaan la maalgeliyaa yes budgetkii iyo kharashkii waa la heli karaa haddii loo hagar baxo haddii culays la saaro haddii la daneeyo waxaan u arkaa dhulkeennu oo cidla noqday waa laga maarmaan inay dadku noqdaan nolol ahaan hadda halkan xerada sidii ay ku nool yihiin
iyo ka soo qaad qabirdahar ama fiiq ama wardheer ama afdheer nolosha dadku halka ay ku nool yihiin mid ka fiicanna ku noolaanayaan baan qabaa especially degmooyinka iyo tuulooyinka oo dee ceel biyo ah iyo biyo nadiifa iyo raashinna way helayaan hadduuna xoolo kale wax kala haysaninna lacag baa la siinaya dawladdu oo qasab ku tahay inay siiso dadka oo ay faamiliyada ku caawiso wixii dhalinyaraan inay shaqaystaan marka waa saas fiican marka cabdirashiid ugu dambeyntii maxay tahay maadaama aad imaatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dadka ka soo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama guud ahaan dalkani Kenya fariinta markaas aad faraysa maxay tahay waxaan fari lahaa dadkeena halka ku nool inaysan ka quusan dhulkoodii iyo deegaankoodii in aysan soo bannayn oo ayna soo cidlaynin in kii waayo aragnimo iyo aqoon leh waxaynu ognahay in badan oo kamid ah dadka halkan joogay fursad waxay u heleen ay wax ku bartaan especially Englishka iyo basic educationka ay ku helaan wadankiina inta ay yaqaanaan dadku badan ama yaqaanaan waxbarashada Itoobiya aad u liidataa marka ninkii wax yara bartay waxaan hubaa fursad tan halkan uu ku haysto ka fiican inuu ka helayo hadday noqoto maamul inuu noqdo hadday noqoto macallin inuu noqdo hadduu noqdo inuu neersi noqdo alshan shaqaalaysiin iyo fursad ka fiican halkan taal ayuu ka helayaa kii wax bartay kii kale aan waxba baranin ee xaas ahaa ee meesha joogay waxaan oran lahaa intii guddiye samaystaan ha pressure gareeyaan anna intii tabartay waan pressure gareynaya mar walbana waan ka hadlaa meel walba oon tago iyo shir kasta oon galo dadka ayaka maaha keliya kuwa dhadhaab kuwa boosaaso ku qaxay kuwa jabuuti ku qaxay kuwa yaman ku qaxay kuwa Uganda dhammaan in la soo celiyo marka waxaan dhihi lahaa dadka halkan jooga ninkii wax bartay asagu halkan shaqalaanta ku ah fursad buu xagga ka helayaa degmadiisii buu ka helayaa magaaladiisii buu ka helayaa ha tago kii kalena guddiye intay samaystaan idaacadaha la hadlaan ha dalbadaan in waddankoodii lagu celiyo iyo deegaamadoodii iyo degmadoodii